السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد فتح آذن iyo kanaalka indhaha shacabka. barnaamijyadeena nabadda aynu kaga hadlaynay waxaan lugeynayaa meel loogu talagalay dadku inay ku lugeeyaan, ku luga baxsadaan, ku nafisaan. haddaad baaskiil wadato, haddaad rucleynayso, haddaad lugeynayso, intaaba waxaa loogu talagalay inaad isticmaasho. meeshan waa ka mamnuuc gawaari. waxaa loogu talagalay inta aan idiin sheegay waa mari karaa. labada dhinac waa laga soo xiray si dadka halkaa ku lugeynaya ama ku ordaya ama ku sheekaysanaya aanan arbush iyo buuq iyo loogu furin. haddii aad daasho oo carruurtaada ama familkaada ay kula socdaan, meelahan oo kala fadhiisan kartaan, waa ku nasan kartaan, waa ku shaaheegi kartaan, biyaad ku cabbaysaan. cabsi ma leh, walwal ma leh, baqdin ma leh. maxaa ugu wacan waxaasoo dhan? waxaa ugu wacan nabadgelyada ugu wacan. yaa ka shaqeeyey dadkii meesha deganaa, yaa ku abuuray, ayaa ka shaqeeyey inay helaan dadkooda meel ay ku nafisaan, cabsi la'aan, walwal la'aan iyo buuq la'aan. waxaa ka maqan keliya in ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey inay u mahad celiyaan baa ka dhiman. annaga waan haysanaa, dee ogtiin dholol intaan ka qurux badan. kuwan hadda waa la sameeyey, saan kilibkaygii hore ku soo sheegay. waxaa la yidhaahdaa kii hore waxaan idinku yidhi waa gacan kureynis. halkaa waxaa maraya geeska biyaha, halkaas biyaha mara, webi oo kala ah. iyagaa samaystay, waa la sameeyey. xooggooda, muruqooda, maalkooda iyo maskaxdooda ayay isugu keeneen. kadibna waxaa laga sameeyey meel biyo mareena, doomaha mara, kuwa dalxiisaa mara, kuwa ganacsina way maraan sidaasi la mid ah. waad arkaysaan dadka baaskilada wata oo iska maraya. waxaad arkaysaan kuwa rucleynaya oo sidaa oo kale ah. ma baqayaan kulligood. falbixis wuu wataa, moobilo qaali ah baa la wataa, kaamirado qaali ah baa la wataa, dhar qaali ah baa la wataa. cabsina ma lahan. waxaa ugu wacan waxaasoo dhan nabadgelyada yaa ka shaqeeyey dadkooda. dadku hadday go'aansadaan inay waddankooda nabadeeyaan oo nimcaystaan oo barwaaqaystaan oo alle subxaana wa tacaala tala saartaan u mahad celiyaan, wax walba u furmaanayaan, waa u qabsanayaan. laakiin waad ogtihiin anaga madaxdayada maxay ku mashquulsan yihiin? caddaan iibso dowladdii horaa lahayd, shirkada soo heshiiyey, markabkeeda badda saar, kalluunka badda iyo wax iska qaataan, adigu lacag ka qaada. kuma xisaabtamin mustaqbalkii dadka, kuma xisaabtamin mustaqbalkii dalka. nafsadiisa muusan xisaabinin uu dhiman doono oo la xisaabin doono beritola ka maalin walba. qof ayaa qafiga loo sii wadaa. madaxda soomaalida ee maalin walba dhaaranaysa, kitaab gacanta saaraysa inay dalka iyo dadka waxaasoo dhan u noqon doonaan daacad, cadaalad u fali doonaan, ayay maalin walba ku dhaartaan. haddana sidaas la mid ah waxay arkaan waxaan aragnaa wax aanan annaga iyo adduunka u isku qanacsanayn. weli waxaa maraya meeshaan idiin sheegay. halkan waxaa jooga fardo. marka meeshaan kulli waa ragga fardo fuulka ahna dee waa fuulayaan markay rabaan. waa kuwa iskale, laakiin cid walba ma aha. xeeladaasay ku jiraan, waa loo nidaamiyey. doogaasaa ugu yaalla, biyaa ugu dhex yaalla. arkaysaa marka
wuu gaaraa xilliyada halkaas waxaa lagu keydiyaa shisha aad arkaysaan raashinkooda loogu keydiyaa oo kaydkooda halkaas u yaala haddii lacala cooskii waxa uu ka dhamaado waxaa la dhahaa dadaalaa wuu gaaraa marka insha allah bini alkariim kuwa hadda la maamulo iyo kuma fakerayaan inay waddanka sidaan islamada ka dhigaan laakiin waxaan rabnaa dadka dhalinyarada ay hadda mustaqbalka leh inay u fikiraan sidaan oo kale siday dalkooda iyo deegaankooda uga shaqayn lahaayeen horumarna u gaarsiin lahayn aad baa idin salaam mar labaad iyo mar saddexaad ilaa kilibkeena hadda waan isugu iman doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu